السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنة الكمر كلا سود وهذا أدي هذا ومهتسنتهين مانتا وقميص وأنا شاني لباتنك بيش اللي حاد جون سنة كلا بدو كون إيه اللحية لباتنك مقال كان وحن ربائنا ندي كل وذاقه dadka Soomaalida ee gobolka Minnesota cunsuriyiinta dhibaatada ay ku hayaan oo sii badanaya hadda oo caay lagu bilaabay qoys Soomaali ah oo maalnimadii Isniinta ahayd doonayay guri raadsanayay inay iibsadaan ayaa nin cadaan ah iyo xaaskiisa inta ay ku soo baxeen ayay caayeen muuqaal ayay ka duubeen markaa qoyska Soomaalida muuqaalkii ayaa viral noqday isla markaana hadallada qoyska Soomaalida caayda iyo aflagaadada loo geysanayo maxay yihiin ayaan idinla wadaagayaa qoyskii cadaanka ahaa ee qoyska Soomaalida ah dhibaateeyay oo iyaguna dhahaya inaga ayaaba nala dhibaateeyay qareenkooda muxuu yiri xildhibaanka laga soo doorto deegaankaasi muxuu yiri qoyskii Soomaalida oo warbaahinta gobolka Minnesota la hadlayna maxay yiraahdeen waan idinla wadaagayaa maxkamadda sare ee Mareykanka oo laba kiis oo muhiim ah oo dhinaca immigration-ka maamulka madaxweyne Trump maanta ku raacday dadka hadda kadib xadka Mareykanka iyo Mexico iska soo dhiibaya Mareykanku ma aqbalaya mise wuu celinaya iyo waliba TPS ama temporary protected status-ki oo maxkamadda sare ay ogolaatay in laga laabto labada wadan ee Haiti iyo Syria dadka ka yimid ee Mareykanka ku sugan arintaasina waan idinla wadaagayaa balse marka hore soo dhawaada maad raadinaysaa meel aad ka barato quraanka kariimka iyo culumta shariicada islaamka adiga oo jooga gurigaada hab online fursadda waxaad ka helaysaa Al-Misbaax Academy ka baro quraanka kariimka higaada akhris iyo qoraalba iyo asaasiyaadka diinta sida salaada iyo ducooyinka xadiiska fiqiga iyo maadooyin kale dugsigu wuxuu qaadanayaa fasal cusub caruur iyo dad waaweynba la xiriir wixii faahfaahin dheeraada nambarka ku muuqda waalidiinta Soomaaliyeed ee jecel waxbarashada waxa la ogeysiinayaa looguna bishaareynayaa in maxadka waxbarashada ee Somali Islamic Online uu ku hayo barnaamij waxbarasho diimeed ah oo ka caawinaya in adiga iyo ilmahaaguba aad si fudud u barataan quraanka iyo culumta shariicada maadooyinka dugsiga laga baranayna waxa ka mid ah quraanka hikaada ahadiista ducooyinka tarbiyada asaasiga ah ee ilmaha tafsiir iyo qaybaha kale ee culumta shariicada qaabka waxbarashada dugsigaanina waa hab online ah oo waxbarashada aad ku qaadanaysan waxaad kala xiriiri kartaa gmail-ka iyo lambarada shaashada kaaga muuqda umrada sanadkan Salaama Group waxay idin haysaa adeegyo cusub waxaana kamid ah adeegyadaas hoteello u dhow labada xaram ee Makka iyo Madiina loogana lugeyn karo xilliyada salaada 2 gaadiid aad ku soo booqan doonto goobaha muqaddaska ah ee lagu xusayo taariikhda islaamka 3 baridda qaabka loo guto acmaasha umrada 4 umreynta waalidka ama walaalka oo geeriyooday ama aan awoodin 5 haddii aad tahay qof qaba baahi khaas ah xagga caafimaadka waxaan ka caawin doonaa gudashada acmaasha haddaba ku soo dhawow qiimo jaban oo ku raali gelin doona faahfaahintaasi dheer fadlan waa WhatsApp number eber 9645492847 mahadsanidin waxa labadii maalmood oo u dambeeyay soo shaac baxay muuqaal qoys Soomaali ah ay ka duubeen qoys cadaan ah oo ku nool magaalada Shakopee ee gobolka Minnesota qoyska Soomaalida waxa ay shopping gareysanayeen guri waxay raadinayeen guri ay iibsadaan marka Shakopee ayay dhex socdeen marka guryaha waxa jirta in hortooda hadii ay iib yihiin for sale lagu soo dhajiyo inuu gurigan iib yahay in kale marka hadii uu iib yahay waxaad wici kartaa nambarka meesha ku qoran ama hadii la degan yahay dadka degan ayaad la hadli kartaa qoyskan Soomaalida marka iyagoo wadada maraya oo gaarigooda wata ayaa ninkan cadaanka ah oo magaciisa Mr Wagner lagu sheegay hadda uu banaanka ugu soo baxay markaas kadibna waxa uu ku bilaabay in uu harassment ku sameeyo uu dhibaateeyo caayo aflagaadeeyo waxyaabaha la yaab kale oo ku dhahayay waxa kamid ah ninkan cadaanka ah qof halkan degan idima baahna goobtana la idima baahna isaga taga macnaha Soomaalinimadooda ayuu ku bartilmaameedsanayay markii uu ogaaday in qoyskan ay Soomaali yihiin waxa uu sidoo kale la xiriirinayaa lacagihii dadka Soomaalida lagu eedeynayay inay xadeen oo waxa uu leeyahay dad lacagta ayaad xadaan lacagteeni ayaad xadeen lacagta aad gurigan ku iibsanaysaan xageed ka keenteen hadalla sidaas la mid ah ayuu qoyska Soomaalida uu ku dhahayay ninkan cadaanka marka qoyska Soomaalida waxa ku jiray gabdho wadankan ku dhashay kuna barbaaray oo Soomaali ah isla markaana iyaguna way iska celinayeen oo waxa ay isaga celinayeen hadalla ay kala mid ahaayeen lacagtiina xageen ku xadnay maxad ula jeedaa arintan marka muuqaalkii ay duubeen ayaa la soo geliyay TikTok kadibna viral ayuu noqday in ka badan 2 milyan ayuu hadda kor u sii dhaafaya dadka daawaday
muuqaalkaasi. marka gabdhaha waxay yiraahdeen anagoo meesha iska marayno ayaa ninkan nagu soo baxay markii uu cabaar aflagaatay kadibna xaaskiisii ayaa ku soo beertay xitaa waxay gabdhahaas ama qoyska Soomaalida ah uu qoyskan cadaanka uu ku dhahayay waad soo ureysaan iyo waxyaabo la mid ah markaas gabdhaha Soomaalida waxay leeyihiin hay sideen u soo ureynaa marka waxaan ognahay gabdhaheena Soomaalida iyo dadkeena Soomaalida dad nadaafad badan in ay yihiin bal wax yar ila daawada ninkan cadaanka ah oo marka hore qoyskan Soomaalida ah aydan u geysanaya markii dambena xaaskiisa ay ku soo beerayso sida ay wax u dhaceen iyo gabdhaha Soomaalida ah sida isaga celinayaan. Nobody wants you here. Really? Really? Not a single person here wants Really? Oh my God, please get a petition or something. From here. Where'd you get your money for the house? Your mom, worry about your own money. Really? Not a single person here wants Really? Yeah, that's all you do is steal. Did I steal That's all money? you do. Did I steal your money? You steal. I'm confused. Nobody bothered you guys. You guys decide to be in people's business. marka labada gabdhood oo ka tirsanayd qoyskan Soomaalida ah oo magacooda la kala yiraahdo Xamdi iyo Sumaya ayaa warbaahinta Care 11 ee gobolka Minnesota la hadlay waxay yiraahdeen inagoo meesha iska marayno qoyskan cadaanka ah siba ninka ayaa nagu soo baxay kadibna waxa uu bilaabay inuu midabkeena iyo waliba jinsiyad ahaanteena markii uu ogaaday inaan Soomaali nahay in arintaasi uu nagu cunsuriyeeyo maxaa yeelay inagu markii hore maba la hadlinba lacagtan waa soo xadeena guriga ku iibsanaysaan xagee ka keenteen Soomaalidiina tuuga ayaa tihiin halkan la idikama baahna waa soo ureys hadalla noocaas la mid ah ayuu ku yiri marka gabdhahan waxay yiraahdeen in dad yar oo magaca Soomaali sheeganaya musuqmaasuq ay sameeyeen in dhamaanba shacabka Soomaaliyeed ee ku nool Mareykanka la yiraahdo tuuga ayaa tihiin waxay yiraahdeen arintaasi waa arin aad looga xumaado waxay yiraahdeen inagu wadankan ayaan ku dhalanay oo aan ku barbaarnay xitaa ganacsiga kuma leehin dad waxaan nahay in aad u shaqeeya isla markaana lacagta xitaa guriga hadda ay ku iibsanayaan iyagu shaqeystay waalidiinteena muddo badan ay ku sugnaayeen wadankan Mareykanka oo mar hore ay yimaadeen marka waxay sheegeen arintan inay tahay arin aad looga xumaado qoyskan marka waxay sheegeen inay booliska Shakabi ay la xiriireen isla markaana report ay u gudbiyeen boolisku waxay yiraahdeen hadda nooma muuqdo wax dambi ah oo la galay laakiin baaritaan ayaan ku sameeynaa laakiin qofka in lagu faquuqo midabkiisa diintiisa iyo waliba jinsigiisa arintaasi hate crime ayay noqon kartaa nacayb qofkan aad midabkiisa aad ku nacbaysanayso bal waa kuwan gabdhaha Soomaalida ah oo warbaahintaasi iyaguna la hadlay. I mean, it's heartbreaking, honestly. We don't want you guys here. We don't want you guys. That was our first interaction. It wasn't even a hi, what are you guys doing here? To just take a group and say the entire Somali population does fraud, it's very heartbreaking. We've been in this country. We were born and raised here. Our parents have been here for a very long time. We don't own any businesses. We are very hardworking individuals. To say provoked is kind of crazy. You guys came up to us. We were driving. You guys walked up to the car. marka wariyaha gabdhahan wareystay waxa uu sidoo kale tagay gurigii ay deganaayeen qoyska cadaanka ah waa uu tagay kadibna waxa uu rabay in uu iyagana dhankooda wax ka weydiiyo sida ay wax u dhaceen laakiin waxay yiraahdeen qareenkeena la xiriir qareenkoodii marka ayaa qoraalkan u soo diray wariyaha qareenku waxa uu leeyahay videogan wareegaya baraha bulshada waxa uu muujinayaa hal dhinac oo kaliya laakiin hadallada kale oo caayda ah oo qoyskan Soomaalida ah ay qoyskan cadaanka u geysanayeen waa laga ididgareeyay amaba waa laga jaray iyaga ayaaba eed sheeganaya marka waxa ay leeyihiin muuqaalkan kuma jiro in hadallada midabta koorka ah ee lagu yiri Mr Wagner isla markaana sidoo kale aan xitaa ku habooneyn in shacabka loo soo bandhigo marka waxay yiraahdeen videogan waxyaabo fara badan oo muhiim ah ayaa ka maqan sidaas darteed annaga ayaaba doonayna inaan sharciga la tiigsano dadka ku lugta lahaa isla markaana dacwado ama dambiye aan ku soo oogno xitaa wasaaradda cadaaladda aan la gaarno sidaasi ayaaba ninkii cadaanka ahaa uu leeyahay qareenkiisa inaga ayaaba dhibaato loo geystay qoyska aan matalayo ayuu sidoo kale leeyahay waxaa sidoo kale jirta xildhibaanka laga soo doorto deegaanka Shakabi oo la yiraahdo Brad Tabki in isaguna muuqaalkan loo diray email ahaan iyo baraha bulshadana uu ku arkay telefoon badanna waa ii soo dhacayeen ayuu waxa uu yiri in aan loo dul qaadan karin oo wax laga xumaado ay tahay arintan midabta koorka ah ee qoyskan Soomaalida ah ama midabkooda ama asal ahaan meesha ay ka yimaadeen in lagu faquuqo wuxuu yiri arintan waa mas'uuliyad darro Soomaali fara badan ayaana ku nool ayuu yiri magaalada Shakabi masjid weyn ayayna ku leeyihiin kala duwanaanshaha ay deegaankeena ay keeneen aad ayaan ugu faraxsanahay waxana uu sheegay community-ga ama bulshada Soomaalidu inay tahay bulsho aad u wanaagsan haddaba waa kan xildhibaan Brad Tabki oo laga soo doorto Shakabi oo isaguna ka hadlaya muuqaalkaasi iyo sida ay mas'uuliyad darro u tahay
in qof midabkiisa ama diintiisa ama jinsigiisa lagu faquuqo. People were extremely upset with the tone, and people were extremely upset with the racism, and making sure that we know that in Shakopee that this is not what we feel. We have a wonderful, large Somali population. We're right around the corner from the mosque here in Shakopee, and it's a wonderful, wonderful thing to have an extraordinary diversity and a lot of different kinds of folks and a lot of things going on in our community. marka waan arki doonaa haddii ayna qoyskaasi cadaanka ah dacwada lagu soo ogo oo boolisku baaritaan ayay wadaan kulay muuqaalka waa ay arkeen qoyska Soomaalidana report ayay gudbiyeen qoyska kalena iyagana dhankooda waxa ay leeyihiin walow aan la arkaynin in wax muuqaala qoyska cadaanka ay duubayeen oo muuqaalkan qoyska Soomaalida oo kaliya ay duubayeen haddii waxyaabo kale oo dheeri ay soo baxaan sida qoyska cadaanka ay sheeganayaan oo ay leeyihiin annaga nafteena waana la caayay oo midab faquuq ayaana la ku sameeyay midabkeena waan arki doonaa arrimahaasina waxyaabaha ka soo kordhay dhinaca kale madaxweyne Trump maanta guul weyn ayaa maxkamadda sare uga soo hoyatay laba kiis oo dhinaca immigration-ka ah oo maxkamadda sare yila ayaa maxkamadda sare ay maanta go'aan ka gaartay sidaan ognahay maxkamadda sare 9 garsoore ayay ka kooban tahay waxaana fadhigeedu oo bilaabmaa 4 October sanad kasta bisha 10aad waxa uu ku eg yahay dhamaadka bishan hadda aynu ku jirno ee June mararka qaarna toddobaadka u horeeya ee bisha 7aad ee July ayuu gaaraa markaas kadib 3 bilood oo fasaxa ayaa garsoorayaasha maxkamadda sare ay galayaan haddaba kiisaska marka maxkamadda sare la hordhigay ayay gabagabeeyaan oo go'aan ay ka gaaraan inta kal fadhiga maxkamadda sare uusan xirmin haddaba labadan kiis oo maanta garsoorayaasha maxkamadda sare ee go'aanka ka soo saareen ayaa midka koobaad waxa uu yahay mid muhiim u ah madaxweyne Trump waxaan ognahay inuu ku ololeeyo Trump in dadka soo galootiga ah Mareykanka inay soo galaan uu ka joojinayo hadda maxkamadda sare waxa ay u ogolaatay oo waliba 6 garsoore isku raaceen 3na ay diideen in dadka marka soo galootiga ah ay yimaadaan xadka Mareykanka iyo Mexico in loo diido in magangelyo ahaan Mareykanku uu u qaabilo sharci federaal ah ayaa waxa jira oo dhigayo qofku haddii uu ciidda Mareykanka cagaha soo saaro in ay qasab tahay in magangelyo la siiyo loona ogolaado muddo kooban inuu wadanka joogo laakiin sharcigan hadda waxa uu dhigayaa in qofka xadka Mexico dhinaca ciidda Mexico intuu ku sugan yahayba in loo diido inuu Mareykanka soo galo waxa jirtay sanadkii 2021 Trump markii wadanka madaxweyne ka ahaa in sharcigan la yiraahdo Maryland uu soo dejiyay markaas kadibna la diiday sharcigii ayaa hadda marka dib loogu ogolaaday qofku marka inta uusan Mareykanka u soo gudbin oo dhinaca Mexico joogo ayaaba loo diidayaa in magangelyo la siiyo arrintaasina waxay tahay arrinta maxkamadda sare ee madaxweyne Trump ay maanta u ogolaatay oo isaguna uu aadka u doonayay dhinaca kale waxaa jirta in maxkamadda sare maanta ay maamulka madaxweyne Trump u ogolaatay dadka ka yimid wadamada Haiti iyo Suuriya oo haystay temporary protection status sharciga la yiraahdo oo qofku wadanka uu joogi karo kana shaqaysan karo lagana masaafurin karo waraaqahaasi la siiyo in dadkaasi laga laabto TPST ama temporary protection status-ki waxa wadanka Haiti ka jooga Mareykanka ilaa iyo 350,000 oo qof halka Syria ilaa iyo 6,000 iyo 100 qof ay ka joogaan marka hadda dadkaasi Mareykanku uu masaafurin karaa oo wadamadoodii dib ayuu ugu celin karaa waan ognahay Haiti hadda gangis ayaa maamusha isla markaana wadankaasi dhibaato weyn ayaa ka jirta inkastoo Syria hadda dawlad cusub ay la wareegtay 12 wadan ayaa Mareykanku waxa uu siiyaa temporary protection status waxa ay kala yihiin Burma, South Sudan, El Salvador, Ethiopia, Haiti, Lebanon, Somalia oo hadda ay ka dhamaatay bishii March ee la soo dhaafay 17keedii waxa sidoo kale ku jirta Sudan, Syria, Ukraine, Venezuela iyo waliba Yemen marka waxa ay isku raaceen haddana 6 garsoore ayaa isku raacday in laga laabto TPS-ta wadamadan Haiti iyo waliba Syria halka 3 kalena ay diideen xubnaha 3da ee muxaafadka ah ee diiday labadan kiis waxay kala yihiin Elena Kagan, Sonia Sotomayor iyo waliba Ketanji Brown Jackson xubnaha ongolaadayna waa John Roberts, Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh iyo sidoo kalena Amy Coney Barrett ayaa iyaguna diiday hadda waxa jirta marka in 8 kiis wali ay harsan yihiin oo garsoorayaasha maxkamadda sare hor yaala oo inta ka harsan bishan amaba toddobaadka ugu horeeya bisha July la filayo inay go'aan ka gaaraan waxa kamid ah birthright citizenship waxa kamid ah dhalashada ilmaha ku dhasha Mareykanka horey ma laga siinayaa dhalasho haddii qofku xitaa dalxiis uu ku yimid ama uu soo galoot yahay oo madaxweyne Trump uu arrintaasi si aad ugu ololeynayay waan arki doonaa iyadana haddii labada toddobaad ee soo socota maxkamadda sare ay arrintaasi Trump ku raacdo amaba ay diidaan aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkeen cilmi waaro idin la sida iyo nabadgelyo